magaalada Hargeysa waxaa lagu soo bandhigay adeega hanuuniyo oo ah application lagu baran doono culumta diinteena suuban ee Islaamka waxaana munaasabada daahfurka ka soo qayb galay culimaaddin siyaasiyiin iyo madaxda dawladda iyo marti sharaf kale adeegani ayaa ka kooban 3 qaybood oo kala ah casharro diini ah fatwooyin culimadu ka jawaabayso iyo in si toos ah culimada loo weydiin karo su'aalo abkan gudihiisa ugu horeyn gudoomiyaha hanuuniye Cabdi Baasid Cabdi Nuur ayaa faahfaahin ka bixiyay abkani cusub markaan aragnay jiilkan soo kacaya iyo baahiday u qabaan inay helaan madal iyo bar ay diintoodii si fudud ku heli karaan culimadii dalkana ay si fudud ula xiriiri karaan wixii diintooda jahli ka qabaan ay ka heli karaan casharro diini ah ay ka qaadan karaan waxaan runtii sameynay barnaamijkaas loo yaqaano hanuuniye runtii ahdaaf iyo yoolal badan baanu ka lahayn hadafka koowaad ama hiiraalka koowaad ee aanu ka lahayn waxa uu ahaa faafinta aqoonta diinta iyo wanaag kasta oo bulshada manfac u ah waxtarna u ah soo gudbinta aqoon diineed oo hal abuur leh iyadoo laga faa'iideysanayo tiknoolajiyadda fudaydinta ishelka culimada iyo mujtamaca in mujtamaca loo reebo dhaxal iyo turaad diintooda ah oo jiilba jiilka kale u aayo iyadoo arki doono casharro fataawooyin kala duwan oo ku kaydsan abkan aynu maanta iyo caawa u joogno ibafurkiisa application-kani waxa uu ka kooban yahay 3 qaybood oo kala duwan kuwaas oo kala ah kow abka waxaa laga helayaa casharro diini ah kuwaas oo xidhiidh ah oo u diyaarsan nidaam waxbarasho waxaa ku jira in ka badan 5,000 oo su'aalood iyo jawaabahoodii application-kan sidoo kaleeto waxaa laga heli karaa in su'aalaha 5,000 ah ee abka ku jira gudihiisa haddii aad ka weydo masaladii aad u baahnayd inaad samayn karto khaanada 3aad ee halkaa inooga muuqato oo ah inaad si toos ah u weydiin karto su'aashii ama fatwadii oo lagaaga soo jawaabay geestooda waxaa hadalka iska daba qaatay culimaaddinta siyaasiyiinta iyo madaxdii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay daahfurka adeegani abkani ayaa laga heli karaa adeegyada Play Store-ka iyo sidoo kale App Store-kaba kutubtaas oo la nidaamiyay oo qaab nidaamsan loo dhigay qaab cashar loo dhigay qaab qofku shahaado ku qaadan karo loo dhigay oo manhaj caadi ah lagu sameeyay oo qofku application-ka uu ka helayo markuu dhameeyana sidoo runtiina ku inoo sheegay uu shahaado qaadanayo waxaan qabaa fikrad aad u qiimo badan oo runtii wax weyn ka qabanaysa barashada diinta islaamka inay tahay hadday aqoontoodii inooga faa'iideeyeen oo ay tiknoolajiyadii cusbayd inooga faa'iideeyeen oo diinteenna ay uga faa'iideeyeen oo dadkeenna ay ugu gudbinayaan aad baan u dhiirigelinaynaa waxaanan u soo jeedinayaa madax iyo mas-uuliin iyo maalqabeenba in wax allayaaliya wixii ay inooga baahdaan inaynu ku caawino waxyaabahan ilaahay uu bani aadamka u furay in looga faa'iideysto diinteenna waxay culimadu dhiirigelinayaan weeye had walay joogaanba markaa waa horumar aada u qiimo badan waxaynu leenahay daayarta horumar aan ka samayna dhinacaas aan ku dadaalno diintana aan ka baranno dadkana aan ka hanuunino muhiimad weyn ayay leedahay teknoolajiyadu marka looga faa'iideeyo xagga khayrka iyo wanaagga marka runtii waxaan u baahannahay inaan uga faa'iideysano teknoolajiyada xagga khayrka waan u hambalyeynaya runtii wax kasta dee waxay ka bilaabdaan nuqdad yar waxaan is leeyahay tallaabo aqoonteena xagga teknoolajiyada aynu aad hore uga marayno si aynu uga faa'iideysanayno oo bilaabatay weeye waxaa laynooga baahan yahay runtii dhallinyarada siba gaar ahaan dhallinyarada cilmigan culimadeennii halkan lagu soo ururiyay abkan inaynu ka faa'iideysano oo cilmiga ku jira qof waliba si fudud ayuu u dhexgeli karaa u dhexgalo oo dhinac walba